mahadu calinaa ilaahay kadibna waxaan mahadu celinaa dadweynihii soo doortay saaxiibkay qaaliga ugu ahaa mudane maxamed cali sheekh aamin computer wax ku macdheer mar labaad mahad baan dadka u celinaya dawaaxda abaqayli ward waxaan halkan u imaaday inaan runtii kaga hadalno sababtii keentay in muse Cusmaan Ibrahim uu dadweynihii shacabkii annagana soo doortay maanta uu falxun lugaha u geliyo arrin culus al-shabaab iyo argixisada laga ramxayt waa wax la wada garanayo masaajid baan laga helin ilo masaajid waa meel ilaahay lagu caabudo dharaar dhow madaxweynaha iyo wasiirka amniga wadanka Kenya jamiica masbay joogan waxay ka hadlayeen waa amniga waana la wada qaatay masaajid sidiisa wadaatara dadka ku tukada ya arrimahan iyo masaajid bin ugu tukada wadaatara waxaan dareemaynaa meeshaas ayada in makooso galay makoosado galay mid yar aan ahayn waayo dadweynihii annaga ma artay aan matalaynay ay wuxuu ku sheegay inay qaraxyaha dhacaan ay kamid yihiin arrinta aad baan u cambareynahay runtii qaasatan degmada Liboy wali uu sheegay because Liboy dad fara badan baa laga qaaday dadkaasoo tuhun iyo beecsharo sokor Soomaaliya ka soo galeysay iyo wax noocaas hadda dadkiisa maqan yahay يوم هذا dad hataa aan la haynin in hadana la yiraaho markii dhibka dhamaajaalay u dhinaceeda ka dhacay dad badan baa degan xoolo dhaqato badan baa dhulkaas ay ku nool hadii hadda dareen iyo shaki fara badan meesha hadda dhamaajaalay la gali oo la yiraahdo dadweynaha ayaa dadka la shaqeynayaan dadka falkan geysanay markaas waxaan u maleynayaa duqa adeerkan laamaha amnigana la shaqeeyo arrimuhu sheegay wax cad baan u wanaagna ku jiro asaga dawladdu waxaan ka codsanaynaa in gadaal loo baaro naftiisa because ruux inta iska soo kaco haduu maalin walba hadal aan jirin iska sheego dadna lagu dulmo oo lagu dilo dadweynihiina gacan loo geysto masala qafaasho la waay sida hadda ku dhacday hadda ka hor Liboy iyo nabaaxigeedaba ilaa iyo Haami dad baa laga qaaday marka waxaan leeyahay arrinta ayada aad baan u cambaaraynayna waxaana leenahay dawladda Kenya hadalkaas asaga ee Cusmaan ka soo yeeray annaga waan ridinaynaa hadalka wax ka jira male waa beenta ayada in raad loo yeelan rabna annaga runtii waayo hadii jarb waana sheegnaa annaga dadka waa dad nabad jecel waa dad islaam waa dad ma aragtay wadankooda u hoggaansan waa dad sharciyeysan hal iyo laba ruux hadii la garto inay la shaqeeyaan ayaga dawladda baaran karto ogaan karto laakiin dad dan oo deegaanka dhadhaab ku nool hadii la yiraahdo masaajidka lagu tukadaan hadii la yiraahdo beecsharada nala joogan barsooyinka nala tagaan ruuxaas asaga inuu Muse Cusmaan garanayaan dareemani bari dhaqsi dawladda waxaan rabnaa in loo yeero statement laga qoro lana weydiiyo dadka ayaga ee masaajidka ku tukanayaan u sheegay uu leeyahay barsooyinkay noo raacaan nala fadhiyaan dawladda inay daba gasho hadalkaaba aad u codsanaya anigoo laga soo doortay mudanaha dhadhaab runtii waxa kaloon rabaa inaan idin sheego waxaa jirta maalin walba ruux markuu ku hadlo mas'uul iskaga tagaysan waagi la garagaaris oo la yiraahay al-shabaab baa gashay nin mas'uul baa intuu soo baxay baa wuxuu yiri dadkaas asaga listooda waana garanayna yawm hada dawladda hatta kamay wardoonin marka dawladda nafteedii waxba si ka culays ma rabna dadka sidan iskaga hadlaayo oo dadka kale islaamka dulan u geysana ayagoo hadalka ma artay aan u fiirsanaynin waxaan rabnaa dawladda inay daba gasho qaasatan regional commissioner saaxiibkan biriq waxaan leenahay ninkaas asaga adeerkan gaf weyn buu geystay gafkaas asaga ahna dad buu sheegay oo uu tilmaamay in la daba galaan codsanayna insha Allah